بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي بولا الليال وولالكين فتحي iyo darsigeennii lixaad oo ka mid a duruustii aynu ugu talagalnay inaynu kaga hadalno fadlu cashri aluwali min dilxijati wa axkaami alciidi waaludxiyati wa ayaami altashriiqi wuxuu darsigeenna lixaadii ku saabsan yahay waxaynu ka bilaabaynaa qodobka sideedaad oo ka mid a 12 qodob aynu dhahnay mawduuca waynu kaga hadlaynaa waxaynu ciwaan oga dhignay maa yufcalu biludxiyati udxiyada maxaa lagu samaynhayaa neefka marka la qalo neef ama laba ama hadba wuxuu dooni ha noqdee waxa alla kuu suurto geliyey hilibkiisa maadaa cuni ma dad baad siin waxaa sunno ahoo sida fiican ah qofka xoola qalay ee xoolaha ma garanaysaa markaa ku udxiyaystay sida sunnada ahee wanaagsan waxa ugu horreeya ee markuu salaadda soo tukada ciidda uu cuno inay noqdaan xoolihii uu ku udxiyaystay hilibkoodii waa hadday suurtagal tahay inta badan dadkeenna qurbaha joogaaya way ku adag tahay neef nool inaad adigu intaad soo gadato aad maaragtay daaraddaada iyo gurigaaga hortiisa ku gowracda sidii lagu helaa ayaaba adagba manaba dhici karto oo nidaamka iyo dhulka aynu ku dhaqannahay baabaan oggolaynba inaad neef weyn oo ma garanaysaa inta calooshii laga riday oo laga yaabo shalay in la qalay xataa maaragtay si hilib ahaana inaad u soo qaadan oo dee iyadoo ayna taasi ma aha markaa aynan muxuuha markaa ayna noqon haynin tii la sheegay ayna markaa noqon haynin hilib ahaan inaad isaga cuni ma ogiyo kollaba se suurtagal siday ku ahaato inaad neef maanta qurbahan aynu joogno intaad soo gadato aad daaraddaada horteeda ku gowracdo adigaaba baxar ku galiba aad bay u adag tahay taasi sidaa daraaddeed ayaa hadday suurtagal tahay weeye hadday suurtagal tahay neefka ama waxaad ku maaragtay aad ku udxiyaysatay inaad hilibkiisa waxa ugu horreeya salaadda kadib inaad wax ka cunto sidaasaa fiican hadday suurtagal tahay haddii kalese innagu waxaynu samaynaa waynu dirnaa lacagta oo dadkii iyo maaragtay iyo masaakiinta afrika muxuu dadka joogay ayaa loo diraa marka waxa weeye waa niyadaa saalixada unbaa ilaahay kaagaga aqbalaya laakiin sida fiicani waa ruuxu hadduu joogo meeshuu neefka lagu qalayey ama xoolaha lagu qalayey inuu marka ugu horreysa waxa ugu horreeya wax ka cunayo uu noqdo maaragtay hilibkooda una wax kala cunin taasaa fiican waxaa kaloo iyadana la sunneeyaa inuu qofku ma garanaysaa uu xoolaha hilibkooda 3 meelood oo isle ka dhigo waxaan u jeedaa waynu gaari doonnaa taase inuu ma garanaysaa inuu qayb si hadiyad ahaan ah uu dadka qaraabada uu ma garanaysaa ku gaadhsiiyo iyo jiiraanka isla markaana waxaa kaloo la sunneeyaa inuu dadka fuqarada ah inuu ku sadaqaysta iyadana maxaan dhahnay qayb isagaa cunay muxuu ahaa qaybna wuu hadiyaystay oo jiiraankii iyo muxuu ahaa dadka isaga asxaabtiisii iyo ma garanaysaa qaraabadu siiyey qaybta saddexaadna waa inuu maaragtay dadka fuqarada ah inuu wax ka siiyo wax kaga sadaqaysto waxaa kaloo u bannaan inuu maaragtay ruuxa kaafirka ah inuu wax ka siiyana iyadana way u bannaan tahay ruuxa kaafirka ee uu siinhayaay inuu dhowr ruux mid uun yahay baa laga yaabaa hadduu qof faqiir a yahay wuxuu ku siinhayaa faqiirnimadaas buu xuquuq ugu leeyahayoo inuu dadka fuqarada ah buu ku jiraa walow hadduu doono gaalba ha ahaadee xaq buu u leeyahay inaad wax ka siiso
ama ma ahee waa gaal qaraabo kula ah inaad qaraabtinimadiisa gaalkiisaba ha ahaadee laakiin waxaa idinka dhaxaysa qaraabtinimo diintaa idiin kala beddelan laakiin waad wada dhalateen ama waa qaraabo kale oo si kaluu qaraabo kugula yahay isagana waxbaad ka siin kartaa way kuu bannaan tahay inaad wax ka siiso ama ma ahee gaalku waaba deriskaaga oo waa jiiraankaaga oo xuquuqdii deriska ayuu markaas soo gala hayaa ama intaasoo dhan midnaba ma ahee waxaad u siin haysaa ta'liifu qalbihi inaad qalbigiisa ku soo dunto oo islaamka iyo shacaa'irtiisa iyo ma garanaysaa wanaagga islaamka iyo ma garanaysaa barto oo tusto oo ma garanaysaa waxaa laga yaabaa inayba u noqoto hidaaya intaasoo dhanba waxbaad ka gaadhsiin kartaa oo aad ka siin kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaynu wax ka cunno oo aynu xoolaha aynu qalanhayno wax ka cunno fii suurati alxaj 28 ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa kuluu minhaa wa atcimu albaa'isa alfaqiira wax ka cuna xoolihii marka aad qalataan waxaanad wax ka quudisaan dadka fuqarada ah ee ma garanaysaa ay dhibaatadu taabatay wax ka siiya isla suuratu xaj waa aayadda 36 alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa taa hore waxay ahayd fakuluu minhaa wa atcimu albaa'isa alfaqiira tan dambana waxa weeye ee 36 fakuluu minhaa wa atcimu alqaanica waalmuctara wax ka cuna xoolihii aad qalateen oo wax ka siiya dadka tujarada ah ee deriskiinna ana wax ka siiya ama dadka aad saaxiibbada tihiin na way noqotaa qaanica iyo dadka asxaabtaada iyo walmuctara kuwa ma garanaysaa marka iyagu ama baahan ama ma garanaysaa muxuu ahaa deriska kula ah ee iyaguna mudan iyo ruux kasta oo mudanba waxaa kaloo ina tusinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa xadiidkii fii saxiixi aljaamica ku sugnaa muxuu ahaa raqamka 5349 nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii dhihi jiray liya'kula kullu rajulin min udxiyatihi qof walboo idinka mida rajulkan yacni ruuxun baa laga wadaa hadda qof kastoo yacni ruux kastoo idinka midihi oo xoolo ku udxiyaystay ha ka cuno xoolaha hilibkooda wax ha ka cuno nusuustaasoo dhani waxay ina tusin haysaa inuu qofku wax ka cuno xoolaha uu qalay inay sida fadliga badan tahay hadday suurtagal tahay laakiin laabudda an yakuuna haada alaklu bacda salaati alciidi waalkhudbati wa haada qowlu ahli alcilmi minhum caliyun radia allaahu canhu wabnu cabbaasin radia allaahu canhumaa waashaafici raximahu allaahu wagayrihim culimmadu waxay leeyihiin cunitaanka aad cunaysaay waa inay noqoto salaadda markaad soo tukatay kadib iyo khudbada kadib ahlulcilmigu sidaas ayay leeyihiin waxaana ka mida ma garanaysaa muxuu ahaa sayidina cali iyo ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa iyo faqiihii weynaa ee ahaa maxamed bin idriis ashaafici iyo in badan oo ka midaba waxaa kaloo isagana ku tusinhaya xadiidka uu soo saaray imaamu tirmidi iyo muxuu aha kayrkiiba ay soo saareen uu leeyahay saxaabigu waxa weeye cabdullaahi binu burayda uu leeyahay isaga oo ka warinhaya can abiihi isagoo aabbihii ka warinhaya
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta ciidulfidriga ah ma uusan bixi jirin ilaa uu wax cuno. waxa uu cunay waa timirihii weeye, waa timirtii ma garanaysaa, uu xoogaa ma garanaysaa uu ka cuni jiray 3 ama 5 ama ma garanaysaa 7, yacni hadba tiro isdheer. ciidulfidriga waxbuu cuni jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ma bixi jirin isaga oon wax dhadhaminin. ciidul adxadana way ka bedelaydoo nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidul adxaa wax ma uuna cuni jirin xataa yusalliya, ilaa uu yacni salaadda soo tukada weeye. waxay ahayd riwaayo kale, kaana nabiyu sala allahu calay wasalam laa yakhruju yowma alfitri xataa yatcama walaa yatcamu yowma annaxri xataa yadbaxa. ma uuna nabigu calayhi salaatu wasalaam ma bixi jirin ciidulfidriga ilaa uu wax cuno uu quuto, mana uunan quuda jirin maalinta yowmunaxriga ah waa ciidul adxaaye ilaa uu gowraco, ilaa intuu soo tukado oo khudbada soo akhriyo, markaa kadib uu markaa ma garanaysaayey uu isagu xoolihii uu ku udxiyeynhayay gacantiisa ku cuno, yacni uu ku gowracaan ujeedaa. xadiidku ma garanaysaa wuxuu ku jiraa mishkaatulmasaabiix, wuxuuna leeyahay asheekh maxamed naasir uddiin alalbani wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix. waxaa la sunneeyaa qofku inuu ma garanaysaa gacantiisa xoolihiisa ku gowracay isagu hadday suurtagal tahay. sidoo kale waxaa la sunneeyaa inuu 3 qaybood xoolaha hilibkooda ka dhigo oo uu ma garanaysaa uu ka dhigo thuluthan lilakli wa thuluthan lilhadiya wa thuluthan lilsadaqa. 3 qaybood oo isla eg hilibka intuu ka dhigo qayb isagu la hadho, qaybta labaadna hadiye ahaan deriskii iyo dadka asxaabta uu maaragtay iyo muxuu qaraabadii iyo uu maaragtay u siiyo, qaybta 3aadna sadaqaysto. saasaa fadli badan. intaas ayaan darsigeenna ku soo koobaynaa 6aad. wixii aana siibay waa ilaahay subxaana wa tacaala towfiiqdii, wixii aan gafayna waa aniga iyo fahmi gaabnidayda iyo daalibnimadayda. wallahu aclam wahuwa waliyu towfiiq. waasalu llah alcadiim rabbi alcarshi alcadiim وأسأل الله العظيم أن يجعل عملنا خالصا خالصا لله نافعا لعباده إنه قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.